qisadan way ka duwan tahay xaqiiqdii qisooyinkii aan hore u tabin jiray wayna ka saameyn badan tahay way ka xanuun badan tahay qisadan aad tabinayo Allah u naxariisto wiilka qisada ila soo wadaagay maantay aan qisada duubayo koonkan kuma noolo oo waa geeriyooday qisadan markii uu noo soo tabinayana inaan ka digtoonaano dhibaatadaas isaga gaartay oo ugu dambeynna uu u geeriyooday ayuu noogu soo wadaagay qisadan waxa ila soo wadaagay Allah u naxariisto wiil ku noolaa ama ku dhashay Puntland wuxuu dhahay hooyaday iyo aabahay waxay dhaleen aniga iyo gabar oo kaliya anigoo 7 jir ah ayaa waxa geeriyooday aabahay Allah u naxariisto hooyaday waxay nagu soo korisay nolol aad u hooseyso hooyaday waxay iibin jirtay cajiinka oo galbihii ay u geyn jirtay reeraha iyo uunsiga ay gagadi jirtay noloshaas adag ayaa ku soo kornay anigu waxaan ahaa yaraanka waxa iga weyneed gabadha walaashay nolosha adkeed aan ku soo kornay dugsiga markaan dhameeyay waxa la igeeyay oo nin dariska ah oo iga bixin jiray bishii lacagta noloshaas adag ayaan ku soo koray waligay kubad maana dheelin maana daawanin noloshayda kaliya ayaan mar walba waxbarashada ayaan ku dadaali jiray si hooyaday noloshan adag ee dhibaatada ay nagu soo korisay aan maaragtay ugu saaro asxaab gooni amaana lahayn ilaa asxaabta aan wax sal diyaarsano oo kaliya waxay nolosha socoto waxa dhacday gabadha walaashay ah iga weyn in ugu dambeyntii nin ganacsada ah oo reer Puntland ah uu soo doontay gabadha walaashay ah alxamdulillah iyadana way ogolaatay sidaas gabadhii loogu guuriyay kadib nolosheena xoogaa way isbedeshay waayo ninka ganacsada wuxuu ahaa nin caawiyay garab badan siiyay hooyo cajiinkii iyo maaragtay uunsiga ay iibinaysay ka joojiyay nolosheena waxaan dareemay xoogaa inay sarakac u kacday laakiin anigu mar walba waxa iga go'naa duruufta adkeed ee rafaadkii agoonnimadii cajiinkii uunsiga ee hooyo nagu soo korisay inaan aniguna maalin gacanteyda kaga saari doono noloshan adag halgankii nolosha qaasatan halgankii waxbarashada ayaan xooga saaray wuxuu waqtiga socdo waxaan dhameeyay dugsiga sare waxaan bilaabay jaamacad anigoo jaamacadda dhiganayo ayaa haddana nasiib waxaan u yeeshay ninka walaashay qabay oo ganacsi cusub furayay ayuu igu daray subaxii jaamacaddan aadi jiray galabkiina waxaan ka shaqayn jiray walaashay ninka qabo meel uu lahaa oo aniga mas'uul iga dhigay xogaa waxaan dareemay waxbarashadayda inay ii hagaagtay noloshaydana ee meel fiican ku socoto anoo jaamacadda dhiganayo haddana aan shaqaynayo maantana hooyaday ay uunsi iibinaynin oo maaragtay cajiin ay iibinaynin alxamdulillah hatta xaafadda aan degnayn markaas waan ka guurnay xaafad kale ayaan degnay wuxuu waqtiga socdo Facebook ayaan maalin maalmaha kamid ah waxaan iska baranay gabar hatta ida ila soo xiriirtay oo salaantay waan salaamay muddo 4 bilood ah markaan sheekeysanaynay oo si walaaltinimo si Soomaalnimo u sheekeysanaynay ayaa waxay igu tiri adigu xaas miyaa leedahay mayaan ku dhahay waxaan ugu sheekeeyay noloshayda iyo qaabka u noolahay iyo hadda sidee tahay ugu dambeyn waxay ku tiri anigu waan ka helay bilaa hore markaan kula soo xiriiray aad baan kaaga helay sawiradaada aan arkay kadibna markaan walaal noqonay jacaylkii aan ku qabay mid ka weyn ayaan ku qaaday waxaan jeclaystay inaan xiriir jacayl ah labadeena yeelano sidee kula tahay aniga hore jacayl uma aan soo binin waan ka ogolaaday gabadha waxay ku nooleed dalka Canada iyadana waxay ii sheegtay in Canada ay ku nooshahay oo Kenya xiriirka qaxootiga Kenya laga soo qaaday oo muddo 2 sano hadda ay shaqaysanayso oo maaragtay nolosheeda ay ku filan tahay xilligan ay rabto mustaqbal iyo nolol inay yeelato aniga gabadhii aad baan isku fahanay waxyaabo badan ayaa ka heshiinay waxaan ku heshiinay inay Puntland imaato aan aqal galno muddo sanad ah ayuu xiriirkeeni socday ugu dambeyntii waxa la gaaray xilligii ay imaan lahayd oo ay 2 qof aad isku fahantay muddo sanad ah sheekeysanayay gabar shaqaysata aniguna wiil shaqaystanahay waxaan isku fahanay inaan isguursano ugu dambeyntii way imaatay waxay imaatay Puntland waxay ahayd gabar aad u qurux badan kaftan badan sheeko badan xaqiiqda shalay markaan sheekeysanaynay ama muuqaal ahaan aan u arkay waxay ka sii qurux badnayd markaan si live ah u arkay alxamdulillah markay imaatay 2 maalin ay joogtay hotel ay ku soo degtay ugu dambeyn gurigan kiraysanay aroosaan dhiganay si farxada ayaan labadeena ku aqal galnay waxay dhahday 3 bilood kadib ayaan laaban doonaa nolosheena quruxda badneed oo farxada badneed anigu ku jirno oo aniga subaxii aan baxayo jaamacadda aan aadayo galabkina aan ka shaqeeyo shaqadii maaragtay mas'uulka walaashay ninka qabo iga dhigay ayaa waxa dhacday markay 42 maalin oo kale ay joogto awalna aan ku heshiinay in 3 bilood ay la joogayso ayaa waxay ugu tiri waxa ay soo galay safar degdeg ah waxaan rabaa inaan dib u noqdo laakiin 6 bilood kadib ayaan soo noqonayaa waxaan ku dhahay nolosha macaankeeda haddaan bilaabnay waxa kugu dhacay waxa ay dhahday 3 bilood ayaan wada joogaynaa dad isjecel oo muddo sanad sheekeysanayay 42 maalin iyo 40 maalin waxba nooma tarayso
waxaa kaa codsanayaa 3 bilood aan shalay ku heshiinay inaad dhamaysato waxay igu tiri anigu kalgacayl iyo jacayl aan kuu qabo ayaan kugu imaaday laakiin maanta inaan noqdo arimo badan oo iga xayiran oo la ii baahan yahay darteeda ayaan u noqonayaa laakiin waxaan ballan qaadayaa 6 bilood kadib inaan ku imaanayo waayahay ayaan ku dhahay labadeeni oo isku faraxsan laakiin ani inay baxdo ee runtii aad ay ii dhibayso ugu dambeyntii waan kaxeeyay reborkan geeyay waan iska soo noqday shalay waxaan ahaa wiil runtii aan nolol xiriirka nolol jacaylka nolol guurka inta baanan aqoonin laakiin hadda gabadhii markay baxday aniga nolosha way ugu adkaatay waayo gabadhii waxay siisay farxad waxay bartay nolol qurux badan aan weligii arkin shalay waxaan ahaa wiil iskaabula ah weligiisa aan guursanin markaan guursaday farxadii iyo jacaylkii wax walba ee ii macaadeen ayay iga tagtay runtii nolosha way ugu adkaatay waxaan dhihi jiray runtii shalay waxaan ahayn laba qof oo wada sheekaysta laakiin markaa ii timaaday oo nolosha macaankeeda badeena wada qaybsanay xaqiiq waxa ah inay ugu adkaatay habeenkii inaan guriga ku soo noqdo oo aan seexdo waayo mar walba aan guriga imaado waxaan dareemaa in maaragtay qofka dunida igu qaalisanaa jacaylkeygii farxadeedii ay iga maqan tahay nolol aanana garanaynin ayaad isiisay xaqiiqdii waxay igu tiri dhib ma lahan waa kuu soo noqonayaa tookada markaan kuu soo noqdo waxaan kuu ballan qaadayaa in muddo dheer ah aan kula joogo insha Allah waayahay ayaan ku dhahay muddo isbuuc ah ayaan wada hadlaynay gabadhii isbuuc wixii ka dambeeyay waxaan arkay gabadhii inaan anigu kaliya wacaayo iyada isoo wacaynin oo markaan wax yar haday ila hadasho ay maaragtay ilaahay soo mashquulsanahay intaan isnaqaanayna weligii kuma arag sida waxaan xasuustaa iyadoo shaqo ku jirto xataa inay soo wici jirtay mar ila hadli jirtay laakiin hadda markay iga tagtay isbuuc kadib waxaan ku arkay gabadhii haddaan telefoonka waco miiga qabanayso 5 mar 6 mar markaan waco ayay iga qabanaysaa 1 daqiiqo 2 daqiiqo haday ila hadasho waan mashquulsanahay ay leedahay waxaan ka waayay kaftankii shalay aan ku garanayay waxaan ka waayay farxadii aan shalay ku qabay aan ku arki jiray dhammaan waan ka waayay waxaan dhahay noloshaydii shalay waxaan ahayn dad isjecel oo xiriir kaliya ka dhaxeeyo